Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee janalka gunta wararka qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah shuruudihii ugu adkaa oo la hordhigay xildhibaanada u tartamaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ra'iisul wasaare Khayre oo bilaabay shirqool ka dhan siyaasiyiinta beesha Waceesle musharax Cabdiraxmaan Tuuryare oo ciidan badan la tagay magaalada Dhuusamareeb tartanka wiilka uu adeerka u yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dr. Gacal oo ay qaraabo yihiin Xasan Cali Khayre oo meel xun gaaray iyo shaqaale ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hal sabab dartood loogu joojinayo mushaaraadkooda intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararka ugu doorka roona markana waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo faahfaahsan tartan adag ayaa la filayaa in maalmo kadib uu dhex maro laba xildhibaan oo u sharaxan kursiga xilka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug kuwaas oo kala matalaya siyaasiyiinta mucaaradka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya labadan xildhibaan ayaa ka soo kala jeeda degmooyinka Ceeldheer iyo Ceelbuur waxayna taageero ka kala haystaan xisbiyada mucaaradka ee uu hogaamiyo xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya labadan xildhibaan ayaa lagu kala magacaabaa Dr. Gacal Maxamed Nuur iyo xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo ay qaraabo yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna arintan noqon doontaa calaamadaha muujinaya guusha iyo guuldarada nabad iyo nolol ee doorashada Galmudug haddii uu kursiga gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug uu ku soo baxo xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo ka soo jeeda degmada Ceeldheer waxaa cad in halkaas guuldaro weyn ay ka soo gaartay nabad iyo nolol balse haddii kursigaas uu ku soo baxo Dr. Gacal waxay u muuqataa inaysan walwal badan ka qaban doonin madaxtooyada Soomaaliya maadaama codadka gudoomiyaha lagu doorto ay ku filan tahay in ay ku soo saarato madaxweynaha ay wadato wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in ilaa hadda xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan uu ka taageero badan yahay Dr. Gacal sidoo kalena uu heeso codad aad u fara badan oo xildhibaanada Galmudug ah arintaas ayaa walaac fara badan ku abuurtay dawladda federaalka ee Soomaaliya nabad iyo nolol ayaa isku dayday inay isoristaag ku sameyso xubinnimada xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan iyadoo ka cabsi qabta in kursiga Dr. Gacal uu ku soo baxo hayeeshee cadaadis ay beeshiisa saartay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa looga ogolaaday in Cabdinaasir Aadan Cusmaan uu ku soo baxo kursiga xildhibaannimo ee beeshiisa ma fududo in rabitaanka dhan kasta uu si sahlan ku yimaado hayeeshee waxaa la sugayaa natiijada ugu dambeysa ee ka soo baxda doorashada gudoonka baarlamaanka Galmudug oo maalmaha soo socda lagu wado inay ka qabsoonto magaalada Dhuusamareeb General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay inay xaliso tabashada madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf General Tuuryare oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Galmudug ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb generaalka ayaa la arkayay isagoo wata ciidamo aad u fara badan oo hubeysan isla markaana kala degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb markii uu gaaray magaalada Dhuusamareeb ayuu si kooban ula hadlay bulshada Galmudug wuxuuna fariin u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya musharax Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay inay xaliso tabashada madaxweynaha Galmudug sidoo kalena ay joojiso faragelinta ay ku hayso doorashada Galmudug dawladda federaalka ee Soomaaliya ha xaliso tabashada madaxweyne Xaaf iyo cid kasta oo wax ka tirsanayso si loo dhiso Galmudug caafimaad qabta waxaan rajaynayaa in la helo Galmudug oo mid ah oo loo wada dhan yahay si dadkeeda loo badbaadiyo ayuu yiri musharax Cabdiraxmaan Tuuryare musharax Cabdiraxmaan Tuuryare ayaa sidoo kale sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu isu soo taago xilka ugu sareeya ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed uu ka yimid codsiga uu isku soo sharaxay dhanka kale senator Yuusuf Geelle Ugaas oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee Galmudug iyo dadaalada ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee loogu jiro dhismaha maamul loo dhan yahay
Senator Yuusuf Geelle ayaa sheegay in Galmudug ay ka soo daashay khilaafaad loona baahan yahay in laga gudbo isjiidjiidkii hore ee lagu qabto horumarka deegaanka. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in xildhibaano ahaan aysan fursad u helin in ay ka soo shaqeeyaan deegaanadii laga soo doortay maadaama khilaaf xooggan uu u dhexeeyo dowladda dhexe oo ay matalayeen iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Senator Yuusuf Geelle Ugaas ayaa ka dalbaday xildhibaanada cusub inay isu taagaan badbaadinta Galmudug isagoo ka digay inay doortaan madaxweyne mucaarad ah oo ka soo horjeeda dowladda federaalk ee Soomaaliya isagoo carabka ku dhuftay in ay muhiim tahay in la helo madax la shaqeyn karta dowladda federaalk ee Soomaaliya isla markaana ka shaqeyn karta horumarka deegaanka. Senator Yuusuf Geelle Ugaas ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in Galmudug ay hadda joogto meel wanaagsan loona baahan yahay in la helo hogaamiye la shaqeyn kara dowladda federaalk ee Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka Galmudug ayaa maanta oo Talaado waxay shaaciyeen shuruudaha laga doonayo qofka u tartamayo xilalka guddoonka baarlamaanka Galmudug. Shuruudaha guddiga oo ay soo saareen ayaa ka kooban 8 qodob waxaana ugu muhiimsan in uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo sidoo kale inuu haysto shahaado jaamacadeed. Sidoo kale shuruudaha ayaa waxaa ka mid ah in ugu yaraan uu leeyahay 5 sano oo khibrad oo hogaamineed ah iyo inuusan faldambiyeed ka galin dowladda federaalk ee Soomaaliya. Warqadda ka soo baxday guddiga doorashada Galmudug ayaa u qorneed sida tan: waxaa xilka guddoonka baarlamaanka Galmudug isku soo sharaxi kara oo kaliya qof kasta oo buuxiya shuruudaha soo socda: 1. inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed kana soo jeeda deegaanada Galmudug. 2. in dhimirkiisa uu taam yahay oo uu caafimaad qabo. 3. in uu leeyahay tacliin gaarsiisan shahaado jaamacadeed ama waayo aragnimo u dhiganta. 4. inuu leeyahay ugu yaraan 5 sano oo waayo aragnimo hogaamineed iyo mid maamul ah. 5. in uusan gelin faldambiyeed uu ku muteysan karo xukun maxkamadeed. 6. in guddiga doorashada uu u soo gudbiyo taariikh nololeedkiisa. 7. in musharaxa u tartamaya xilka guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug in uu bixiyo lacag gaaraysa $10,000 halka guddoomiye ku-xigeenka koowaad laga sugayo in uu bixiyo $5,000. Guddoomiye ku-xigeenka labaad qofka u tartamayana waa in uu bixiyaa $2,500 kuna soo shubaa akoonka gaarka ah ee guddiga doorashada. Iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in barnaamij siyaasadeedkiisa uu ku soo bandhigo golaha sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug ka hor inta aysan dhicin doorashada. 8daas qodob ayaa la hordhigay xildhibaanada doonaya inay isku soo sharaxaan xilka guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo labadiisa ku-xigeen. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay habeen hore hub fara badan ka soo bixiyeen guri ku yaala degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir kaas oo ku yaala meel muhiim u ah ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya. Gurigan ayaa ku yaala kasoo horjeedka xerada ciidamada cirka ee Avizioni waxaana albaabka xerada iyo guriga hubka laga soo saaray u dhaxeeya kaliya laamiga ay gaadiidka maraan. Qolka hubka laga soo saaray oo ah albaab banaan ayaa waxa u kireysnaa dhalinyaro kuwaas oo la sheegay inay guriga ka maqnaayeen xilliga howlgalka uu dhacayay waxaana hubka uu isugu jiraa qoryo fudud, bambaanooyin iyo qalab kale oo dagaal sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka. Xerada Avizioni oo ah goob muhiim u ah ciidamada dowladda ayaana lahayn ilaalo habeenkii wixii ka dambeeya 9kii habeenimo waana la xiraa albaabka xerada wixii xilligaasi ka dambeeya. Ma jirto ilaa hadda cid faahfaahisay arrintan oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ha yeeshee waxaa habeenadii la soo dhaafay ka socda magaalada Muqdisho howlgallo lagu baarayo guryaha iyo xaafado gaar ah oo laga shakiyay. Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Sadiq Warfaa ayaa lagu faray wasaaradda maaliyadda inay mushaarka iyo gunnooyinka ka joojiso shaqaalaha aan marin tirakoobka saxda ah ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday tirikoob lagu kala ogaanayo shaqaalaha shaqeeya iyo kuwa aanan shaqeynin waxaana ugu dambeyn dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ogaatay shaqaale fara badan oo mushaarka iska qaata kuwaas oo aanan soo xaadirin goobaha iyo hay'adaha ay ka shaqeeyaan. Warqadda ka soo baxday wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Sadiq Warfaa ayaa sidoo kale guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda lagu amray inay dib u eegis ku sameeyaan liiska shaqaalaha aanan shaqeynin kuwaas oo ay u soo gudbisay wasaaradda.
guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen channelkan. daawad haddii aad ku cusub tahay channelka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee channelka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada. sidoo kale daawade waxaad furtaa gambaleelka si ay kuugu soo dhacaan wararkii ugu dambeeyay ee aan halkan kusoo daabacno.